السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي wanaagsan asxaabay meel kasto naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeeni koobaad waa maalinimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay 28 bisha May sanadka 2026. haddaba barnaamijka waxaynu ku soo qaadan doonaa macluumaadka iyo wararkii ugu waaweynaa ee soo kordhay intaynu kala maqnayn. weeraro culus ayaa saakay la isweydaarsaday Mareykanka iyo Iiraan. saldhigyo Mareykanka ku yaala ayaa lagu garaacay sida la leeyahay gantaalo aan hore loo arag. saldhigga ciidanka badda Iiraan ee Bandar Abbas oo isaguna Mareykanku ay duqeeyeen. xaaladda oo aad u kacsan gobolka bariga dhexe maxabad joojintii ayaa burburtay sidee wax u jiraan. wararkii u dambeeyay xaaladaas iyo meelaha la kala duqeeyay iyo xaalku sida uu yahay hadda ayaynu barnaamijka ku faahfaahineynaa. waxaa soo kale barnaamijkaanu idinkugu haynaa xiisad kale oo ka dhex aloosan Mareykanka iyo Ruushka. talow iyaguna ma isfara saari doonaan? xiisadaasu maxay tahay? iyana wararkii ugu dambeeyay ayaan idiin haynaa. Israa'iil iyo Xisbullah oo iyaguna nagta iska saaraya. qodobadaas ayaynu barnaamijkeena ugu horeeya maanta oo khamiisa ku soo qaadanaynaa. inta aan ku jirnana wixii tafaasiil iyo warar soo kordha waanu idinla socodsiin doonaa. si wanaagsan asxaabay meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeenii ugu horeeyay maanta oo khamiisa taariikhduna waxay ku beegan tahay 28 May. wararkii soo dhacay tan iyo intaynu kala maqnayn kuwii ugu waaweynaa ayaynu barnaamijka ku soo qaadan doonaa. haddaba barnaamijka waxaynu ku bilaabaynaa saakay aroortii ayaa waxaa mar kale gariiray gobolka bariga dhexe. Mareykanka iyo Iiraan ayaa duqaymo culus isdhaafsaday. haddaba sidee wax u dhaceen? maxaa dhacay? haddaba warar kala duwan ayaa soo baxaya oo la leeyahay sida ay wax u dhaceen. Iiraan qaab bay wax u sheegaysaa, Mareykankana qaab kale ayuu wax u sheegaya. Mareykanku waxay leeyihiin diyaarado drones ah iyo doomaha yaryar ayaa waxay rasaas ku soo fureen ciidamadeena. annaguna waxaanu kaga jawaabnay weerar aynu ku qaadnay masdarka ama meeshii diyaaraduhu ka soo kacayeen ee la yidhaahdo Bandar Abbas. waa sheegashada Mareykanka. waxay leeyihiin annagu waxaan nahay isdifaacid. maalin horena waxay yidhahdeen waxaan nahay koox isdifaacaysa, annagu hujuum ma nihin, weerar ma nihin. okay, Iiraan dhankeeda maxay leedahay? Iiraan waxay leedahay taxdiiraad, digniino waxaanu u dirnay maraakiib isku dayi rabtay inay soo maraan Hormuz. ma la sheegin marka waxay ahaayeen maraakiibtaas. ma maraakiib Mareykanku leeyahaa ma kuwa kala ma sheegin. laakiin waxay yidhaahdeen dalaqaad oo taxdiiriya ku ridnay. macnaha maxay tahay? waa rasaaso digniin ahaa ku ridnay. maraakiibtaas markay islaga tireen marka hore waxaa lagu ridayaa rasaas digniina. hadduu iska dhaga tiro rasaastaas kadibna nagtaa laga saaraya. marka dalaqaad taxdiiriga ku ridnay way kala wareegeen, waa carareen. maraakiibtii waa qaateen, ma inay baashu meel xun taagantaha way arkeen. laakiin ilaa hadda maraakiibtaas waxay yihiin ma sheegin Iiraan. laakiin Mareykanku waxay leeyihiin hawshaas saasay u dhacday. markay intaas u dhacday ayaa waxaa dhacay in lasoo weeraro saldhig la yidhaahdo Bandar Abbas. saldhiggan Bandar Abbas ee ciidanka badda ay leeyihiin wuxuu ku yaalaa dekad la yidhaahdo Bandar Abbas oo maaragtay Iiraan ay leedahay oo saaran Hormuz. meeshuu saaran saldhigga meeshuu ku yaalaa. maalmo ka horna Mareykanku meeshaas way duqeeyeen. waxay aaminsan yihiin meeshaasu inay tahay meesha dhan oo laga xukumo Hormuz. meesha gantaalaha laga soo diro, doomaha yaryar laga soo dirayo, droneska laga soo dirayo, meeshaasay aaminsan yihiin Mareykanku inay meeshaa tahay. marka meeshaasay duqeeyeen. meesha markay duqeeyeen ciidanka ilaalada kacaankuna waxay yidhaahdeen annaguna waa ka jawaabnay.
jawaab la egaa siinay macnaha wixii ay soo rideen wax la eg oo weliba ka qatarsan ayaynu nagta kaga saaran saldhigyada Mareykanka mid ka mid ah ayaanu saakay dukum daakum ka dhignay intii la soo dayactiray maalmahan xabad joojintu socotay ayaanu dhulka la sinnaynay saldhigu marka meeshuu ku yaalo Iiraan ma sheegin Iiraan ma dhihin ma Imaaraadku ku yaala ma Sacuudiga ma Bahrain ma Qatar ma Kuwait ma waxba ma sheegin laakiin saldhigaas waa cunayna okay intaas markay sheekadu joogto Kuwait qaylisa marka dawladda Kuwait ayaa soo qaylisay dawladda Kuwait marka maxay leedahay saakay waxana la ku soo ganay saaruuq aynaan weligeyn arkin uu soo dhacay raadaarka markuu soo galay iyo markuu ku dhacay meesha waa isku mid iyo diyaarada drones saakay marka dadkii waxaan siinay digniino idaacadahan u marinay dadka reer Kuwait guriyihiina ku jira warsaaka xaalku caadi maaha ilaan beesha dukum daakumka laga dhigay waa saldhig Mareykanku Kuwait ku leey alla cunay saak marka Kuwait maxay leedahay sawaariiq iyo drones alaska kaana soo daba dhigay hal mar Kuwait laftirkeeda marka ma sheegayso masterka ama meesha ay waxa kale ka yimaadeen Iiraan ay ka yimaadeen marayso laakiin waxay yiraahdeen waxa la tacaalayna waxayna weligeed arkin gantaalo waxa nagu soo dhacay yaable intaas markii la isgaarsiiyay macalinka weyn canduftiisu dib u laqay weerar iyo ka weerar waay Hormusna wali waa xarata markabkayga harsaasi lagu riday aday ku talaalay aday waa ka soo marmash hada weerar soo qaadan oo kugu qaadayna ilaha iska garaac marka saakay xaalku halis u galay hadaba markaan idin soo telefishinka Carabiga wariyahooda ku sugan dalka Kuwait oo goordhow war soo diray wuxuu leeyahay Washington weerar ay qaaday Tehraanna way ka jawaabtay tafaasiisha khatarta xiisada oo si xoogaysatay waxayna ahayd tan iyo markii xabad joojinta dhinacyadu ay gaareen xiisadii ugu kululayd ama duqaymihii ugu kululaa ee la isdhaafsado ayaa saakay dhacay ayaa la leeyahay oo marka meesha ka dhacay waaye marka saakay saasa horta jugta la isaga geliyay marka dad badan oo arinta ka hadlay waxay muujinayaan in heegan la wada yahay Iiraan waxa ay sheegayso inay sax tahay oo heegan ku jirto haddii weerar soo qaadaan Mareykan dhag isla markii cabirka uu haystaaba meesha dukum daakum laga dhigay soo socodle waa kaas halkaas uu marka xaalku maraya xaajadu marka ma fiicna meeshaas Hormus la leeyahay waxba ka soo socda meeshaas Mareykankuna bandar Abbas meel la yiraahdo bar tilmaameed waa meesha wuxuu leeyahay meesha wax ka soo dhacayaan meesha waay marka waxyaabaha la yaab kale weerarka saakay ay warbaahintu ka diiwaan gelisay waxa kamid ah gantaalkan aan la sheegin nooca uu yahay ee Kuwait ku dhacay Kuwait waxa leedahay saaruuq noociisa aan hore loo arag ayaa ku dhacay leedahay Kuwait waa taay marka wali waxaynu ku jirnaa sheekada ku saabsan area Hormus iyo wararkii ugu dambeeyay soo kordhay sheeko kale oo cusub ayay Mareykanku keeneen wasaaradda lacagta ee Mareykanka waxa ay sheegtay inay cunaqabateen saarayso hay'ad dhawaan dawladda Iiraan ay u magacawday inay ka shaqeyso howlaha ka socda Hormus hay-adda cashuurta iyo alaabtan ka qaada dadka iyo waxa kala habaysato waay hay-addii Mareykanka wuxuu leeyahay cunaqabatayna aan saarnay hay-addaas oo Hormus ka shaqeynaysa cunaqabatayna saarata macnaheedu marka maxaa laga wadaa cunaqabatayna hay-adda la saaray lama macaamili karo waay macnaha wax Mareykanku ciduu cunaqabatayn saaray cidii la macaamisho waa dambiilo waay macnaha Mareykan xaqiis marka maraakiibtii xataa meesha iska marayso xoogagooda intay iska tuurata meesha maraysay culays kale cusub haddana soo koray
maraykankii wuxuu leeyahay dadka aad la macaamilaysaan waa cunaqabateena saaran se ula macaamili kartaa yaab kala waay marka meeshii marka toosay u xarmi kartaaba haddii maraakiibtii oo macaamilaysa oo 30 iyo 40 iyo maalin walba la gudbinaya haddii macaamilkoodii la yidhaha cidda aad la macaamilaysaan cunaqabateena saaray marka waxay leeyihiin dadku meesha macnaheedu waxa waay maraykanku isagaaba ka dambeeya in meesha xarmato oo macnaha meesha in la xiro isagaaba raalli ka marka sheeko waaliya marka meesha ka socota haddaba aan idin soo wargeyska la yidhaahdo sharqul awsad wuxuu leeyahay maraykanku waxay cunaqabateen saareen hay-adda Iiraan u qaabilsan maamulka marinbiyoodka Hormuz haddaba wasaaradda lacagta maraykanka ayaa waxay sheegtay inay cunaqabateen saartay hay-addaas oo Iiraan ay u diyaarisay una samaysay inay maamusho dalabaadka sida loo marayo marinbiyoodka Hormuz dagaalka markii uu dhacay kadib hay-addan markaas la sameeyay si ay howlaha u kala furdaamiso oo uga shaqeyso marka arintan waxa leeyahay mar kale waxay dhabar jab ku noqon doontaa howlihii iyo dadaaladii marinbiyoodka lagu furayay marka sheekada iyaduna aaday khatar badan u taal leeyahay oo Hormuz ayay ku keenaysaa xiisad kale qodobada marka maraykanka iyo Iiraan warkoodu marka intaan kaga gudubno sheeko kala soo baxday oo la leeyahay maraykanka iyo ruushka ayaaba hadda isku dhaarsan sidee wuxuu jiraan maalmo koor waxaynu halkan ka sheegnay barnaamijyada ku soo qaadanay in ruushku uu digniin siiyay safaaradaha Kiev jooga caasimadda waddanka Ukraine inay iskaga baxaan oo uu doonayo inuu magaalada Kiev siday tahay u duqeeyo markuu warkaas soo saaray dowladihii Yurub safiiradii ruushka u wada waceen wadamadooda joogay sidee ku dhici kartaa safaaradeena maxaa uga qaadayna waddanka waa waddan xor ah doodaas bilaawad maraykan wuu aamusnaa saacada ka hor ayuu maraykanku hadlay wuxuu leeyahay safaaradayda ma ka qaadayo Kiev ruushow haddaad wax ku soo rido adaa ka mas-uul safaaradda maraykanka ee caasimadda Ukraine Kiev ma qaadayn safiir ma baxayo ma xirayno meeshana joogayna haddaad wax nagu soo ridana adaa ka mas-uul waxay la mid tahay adigoo soo weeraray dalka maraykanka safaaradda dhulkeeda waxaa iskale waddankaas maraykanka iskale marka anaga ma kuu soo socono meeshana soo aaday sheekadu marka halkaas maray ninkii Putin ahaa halkaas marka waxaa laga hor istaagay inuu Kiev weeraro dowladda Kievna iyadu waxay markaa sheegtay inaysan bixin safiirada oo ay ku gambadaan madaxda maaragtay Ukrainianka marka sheekadaas aad iyaduna xasilada oo khatar badan tahay ruushkana digniinihii uu qabtay waxa ka haray maalin kaliya leeyahay inay kaga guuraan ilaa maalinta Jimcaha oo hartay marka sheekadu way qasan tahay halkaas waxaana laga baqayaa hadii weeraradaas u dhacaan in dagaalku halka mar kale ka qarxaba haddaba marka aan tuso wararkii ugu dambeeyay ee arinkan laga qoray saacadihii la soo dhaafay haddaba waxaa la sheegayaa kadib markii ruushku uu digniino soo saaray maraykanku waxay sheegeen in safaaradooda Kiev ay furan tahay oo aan marnaba la xiri doonin midowga Yurub iyaguna waxa ay isugu yeereen safiiradii ruushka dalalkooda joogay iyagoo ka arinsanaya ruushku inuu qaldan yahay oo aanay safiiradoodu halka kala baxayn iyagana sheekadaas marka nimankii ruushka waa lagu adkaynayaa halkaas marka waxa leeyahay labada dhanba uu noqon karaa inuu ruushku waxa kan iska daayo ama inuu ruushku macal safiiradooda iyagoo joogo oo halka garaaco oo yiraahdo waaba idin digama ka baxdaan meesha marka sheekada iyaduna aaday u qasan tahay qadar xayeysiisa kadib waxaan ugu gudbi doonaa wixii macluumaad ee soo kordhay wararkii ugu waaweynaa kulanti wanaagsan asxaabay meel kastoo daga daawanaysaan ku soo dhawaada qaybihii ugu dambeeyay barnaamijkeennii ugu horreeyay maanta oo khamiis ah haddaba qaybtan waxaynu ku soo qaadanaynaa koonfurta Lubnaan oo dagaalo aad u qaraar ay ka dhacayaan maalinkii labaad dagaal lugta ahna waa la isku fara saaray ilaa saakay
cirkana waa la iska duqaynayaa. Israa'iil waxaa la sheegay inay duqaysay ilaa dhowr iyo 10 goobood iyadoo dishay 15 qof, dhowr iyo 10 kalena ay ku dhaawacmeen saacadihii lasoo dhaafay weeraradii cirka ahaa ee ay ku qaaday koonfurta Lubnaan. dhanka kale Israa'iil waxay sheegtay inay sii xoojin doonto weerarada ay ku hayso Xisbullah iyadoo ciidamadeeda lugtara ay sheegtay in ay ku sii faafi doonaan meelo badan oo ka mid ah koonfurta Lubnaan. Xisbullah iyaguna waxay sheegeen inay iska caabiyeen weeraro ciidanka lugta ah oo ay dib u waabiyeen ciidankaas oo watay hub iyo diyaarado helicopters ah. marka halka iyaduna waa ujeedaa way ka qasan tahay. Xisbullah waa la mari lahayn wax kasta Israa'iil way samaysay waa dhaqaajin laada. marka nimankii awlaadiyaaba qaati billahi laga joogaa Iiraan xaggee joogtaa waay sheeko marka halkaas ay baraysa. wararkaas ayaa ugu waaweynaa barnaamijkaygii ugu horeeyay maanta oo Khamiisa. haddii alla idmo wixii kaloo soo kordha barnaamijyada dambe ayaan idinkula socodsiin doonaa. like gareeya oo share gareeya barnaamijka. asxaabay meel kastoo aad joogtaan waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.